guddidii wasiirada ahaa oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland oo hogaaminayay wafdigani isla markaasna ahaa gudoomiyaha guddida nabadaynta bulshadaasi walaalaha ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirka caafimaadka wasiirka beeraha wasiirka xogeenka arrimaha gudaha barasaabka gobolka Salal xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanka wadajir oo ka tirsan degmada Saylac ee gobolka Salal oo halkaasi dhawaan ay ku dhaxmartay shaqaaqo laba bulsho oo ku wada dhaqan deegaankaasi ayaa waxa kulan ay ku dhaxdhaxaadinayaan ay kula qaateen deegaankaasi duqeyda iyo waxgaradka ka soo jeeda labadaasi beelood ee ay shaqaaqadu dhaxmartay waxana ay ka wada hadleen adkeynta nabadgelyada iyo wadajir bulshada Somaliland sidoo kalena waxa ay guddida odayaasha ah u soo bandhigeen in loo baahan yahay sidii arintani nabad iyo wada hadal loogu dhameyn lahaa waxa kale oo ay xubnahan wasiirada ahi kula dardaarmeen guddida sida ilaa haatan ay hawshu u socoto waxaana halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur waxaanu sheegay inay ka go'an tahay sidii hawshani nabad iyo isafgarad loogu dhameyn lahaa waxaan anagu ka gobol ahaan mar walba Ilaahay ka baryeynaa oo idinka baryeynaa oo dhamaanteen Ilaahay uu ka baryana in Ilaahay bogeena dhamaanteen barcad isku mariyo waxa maanta halkan fadhiya labadii ergo dhacdadu ka dhacday muddada 44 cisho ka hor waxaan anigu u kacay laba qodob dhinaca dhibkaysta waxaan leeyahay war wixii dhibkaysta lagu yaqaanay ayaa maanta madasha lagaga fadhiyaa laga helo dhinaca dhibanahana waxaan leeyahay walaalkayo culays baa kugu dhacay adna wixii dhibana lagu yaqaanay ee tanaasul lahaa ee xurmo lahaa ee dulqaadasho lahaa adna laga helo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Ahmed Muumin Said ayaa waxgaradka labada dhinac ku fogaadiyay ismaqalka iyo kala dambeynta ilaa imika ay hawshu ku socoto golaan wasiirada ee lixda wasaaradood ee ka socda xukuumadda waxa halka madaxweynuhu soo diray madaxweyne ku-xigeenkuba in arinta xalkeega iyo dibteeda ayna halka dhaafinaanu joojino waxaan ugu mahad celinaynaa falkii dhacay inayna dib ku sixin ee ay fadhiyeen ay sugayeen go'aanka xukuumadda ay qaadanayso iyo go'aanka cidda dibta geysatay si wax soo dhaweysay sugayeen oday walba gurigiisa iyo reerkiisa caruurtiisa ka yimid ee doorka u galiyay arinta in xal ku soo dabaalaan inagana Ilaahay baa jasaakumullahu khayr baan waa demiseen fidmadii halkii dhacday baa demiseen Ilaahay inuu jasaaysiyo ka go'aanka xukuumadda anagu hogaamiyo wasiirka salawaad kore wasiirka biyo waxaanu garanay maanta barota inaan la soo hor fadhiisto la wada hadlo waxna gacantaanu ku haynaa ka xukuumadahan anaga iyo ciidamada amniga oo runtii saddexdii janaba ay ciidamada ay nala joogaan maanta in madashan lagu wada hadlo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Salebaan Yusuf Ali Kore oo ah gudoomiyaha guddidani ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland ay ka go'an tahay sidii labadani bulsho ee walaalaha ah oo ay dhawaan shaqaaqadu ku dhaxmartay deegaankaasi wadajir hawshooda nabad iyo wanaag loogu dhameyn lahaa dhaqanka soo jireenka ee Soomaalidu marka laba ergo la soo fariisinayo ama laba qabiil la soo fariisinayo kulli qolana waa dhibane qolana waa dhibgeysti marar badan oo labada qoloba dhibgeysataana waa jirtaa taynu u fadhinaa maanta waxa weeye waxaa tihiin dhibane iyo dhib loo geysti qolada dhibta geysatay waxaanu ka rajaynaynaa oo aanu ka filaynaa sidii dhaqanku ahaa ee lagu yaqaanay inaad martaan wadadii dhaqanka ahayd ee lagu yaqaanay ee qofka dhibta geystaa uu maro ee dhaqan odayaasha dhibta loo geystay waxaanu aad iyo aad ugu ammaanaynaa intii dhibta loo geystay inaanay wax dhiba ka dabagelin culayska ay arinta dawladdu saarayso ama xukuumaddu saarayso wad garanaysa waa markii labaad oo aanu nimid aad iyo aad ayaanu runtii u jecelahay in arintani dhamaato Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in Ilaahay arinta aanu halka aanu isugu nimid dhamaanteen in Ilaahay maslaxad ku dhameeyo dawladdu waa idin jecesha ma jecelin in dhibi idin kala gaadho ma jecelin inaanu idin kala raacno ma jecelin inaanu cid xagga dhinac saaro ma jecelin inaad colaatantaan ma jecelin wallahi aanu jeclay walaalayaal waxaanu idin noqonaynaa markaa